Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, Injineeriso, Wasiirka Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta Qaranka ee Xukuumadda Soomaaliya iyo Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed ayaa darajo dalacsiin oo ka socotay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo u xiray saraakiil ka tirsan Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed kuwaasi oo lagu abaalmariyay shaqooyinka culus ee amniga la xiriira oo ay ka hayaan dalka. Saraakiisha munaasabadan lagu dalacsiiyay ayaa waxaa ka mid ahaa Taliyaha Qaybta Guud Gobolka Banaadir ee Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Ex Gaashaanle Sare Saadaq Cumar Maxamed oo loo dalacsiiyay Saraakiil Guuto. waxaa kaloo la dalacsiiyay Taliye Ku-xigeenka Qaybta Guud Gobolka Banaadir ee Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Ex Gaashaanle Dhexe Maxamuud Cabduqaadir Xaaji Jeego oo loo dalacsiiyay Gaashaanle Sare iyo saraakiil kale oo ka tirsan howlgallada ciidanka booliiska iyo qaar ka mid ah taliyayaasha saldhigyada degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ka mid ahaa kuwa ay madaxda qaranka u xireen darajooyinka dalacsiinta ah. Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Sareegaas Bashiir Cabdi Maxamed ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabada dalacsiinta ah. waxaan mahad gaar u celinayaa dhammaan shacabka magaalada Muqdisho ee uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka say u garab istaageen ciidanka booliiska Soomaaliyeed habeen iyo maalin u garab taagayeen oo la shaqeeyaan bulshada la shaqeeya booliiska waa rumowday markaan wax dhaba oo xaqiiqi noqotay taa markaan ku soo gudbo waxaan u hambaliyeynayaa oo bogaadinayaa dhalinyarada saraakiisha yar ee dalacday maanta ugu horeeyay Taliyaha Qaybta Guud oo lagu qiimeeyay howlgallada iyo dadaalka iyo juhdiga ugu jiraan sugidda amniga magaalada Muqdisho. waxaan kaloo rabaa inaan tilmaamo in isla bishan gudaheeda ay dalaci doonaan ugu yaraan 500 oo qof oo booliis ah haddii Ilaahay idmo. Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineeriso waxa uu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uga mahadceliyay garab istaaga iyo dhiirigelinta ciidanka qaranka ee u taagan difaaca qaranka iyo badbaadinta shacabka. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo runtii bixiyay darajadan u gartay isla markaana qiray sida ciidanka booliiska Soomaaliyeed u yihiin ciidan heegan ah u taagan har iyo habeenna bulshada badbaadinaya. Mudane Ra'iisul Wasaare Ku-xigeen oo la socota Febraayo iyo Maarso wixii ka dambeeyay inaan la bedelay istiraatiijiyadii sugidda amniga caasimadda taasna ay suuro gelisay in maalin walba ciidanka booliisku ay ka howlgalaan degmooyinka gobolka Banaadir in maalin walbaba ciidanka booliisku ay ka sameeyaan waxa loo yaqaan stop and serve in maalin walbaba ay jiraan guddi kormeer ah iyo dabagal oo hubiya ciidanka iyo sida bulshada ula dhaqmayaan maalin walbana waxaa jira warbixinno aan ka helno oo noo xaqiijinaya in maanta amniga uu sidii hore dhaamo in bulshadu ay kaalin ka qaadatay in barnaamijkii darisaynta iyo ciidankiina la isku xiray maantana haysano shacab iyo ciidan booliis oo wada shaqeynaya. Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa u hambaliyay saraakiisha la dalacsiiyay isagoo kula dardaarmay in ay laabalaabaan dadaalada lagula dagaalamayo argagixisada. dhammaan saraakiisha la dalacsiiyay waxaan ugu hambaliyeynayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gartay in howlwadeennada iyo saraakiisha dhalinyarada ah iyo Generaal Saadiqba ay u qalmaan mutaysteenna in la dalacsiiyo waxaan leeyahay idinkuna sii dardargeliya kaalintii nabadeynta iyo hormuudka ka haydeen sugidda amniga si laban-laaba guul baan idin rajaynayaa dhammaantiin booliiska Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed guul baan u rajaynayaa waa mahadsantihiin. Nuur Saciid Haliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.